السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo booqasho ku jooga dalka Mareykanka ayaa kulan la qaatay muslimiinta Itoobiyaanka ah ee ku dhaqan dalkaasi Mareykanka. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo khudbad u jeedinayay dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadaasi ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan diinta Islaamka, waxaana ku bilaabay salaanta Islaamka isagoo weliba ugu dhawaaqaya qaab sax ah. waxa kale oo uu intaasi sii raaciyay isagoo sharaxaad ka bixinaya micnaha ay xambaarsan tahay salaanta Islaamku. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa waxa uu ka sheekeeyay in haweeneydii ugu horeysay ee nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee naaska nuujisay ay ahayd haweeney xabashiyada, isagoo u jeeda gabadhii ugu horeysay ee nabiga naaska nuujisa oo magaceeda la oran jiray Thuwayba, waxaanay naaska nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee la nuujisay wiil ay dhashay oo la oran jiray Masruux iyo Xamse bin Cabdilmudalib. haweeneydaasi ayaa waxay adoon u ahayd nabiga adeerkii Abulahab, waxaanay dhimatay sanadkii 7 ee hijrada furashadii Khaybar. waxa kale oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ka sheekeeyay in mu'adinkii ugu horeeyay ee nabiga uu ahaa nin xabashi ah isagoo u jeeda Bilaal. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa sidoo kale ka tibaax bixiyay in dhulkii ugu horeeyay ee ay muslimiintu u hijroodeen uu ahaa dhulka xabashida, waxaanu intaasi ku daray in boqorkii xilligaasi ka talinayay dhulka xabashida uu diiday in uu laaluush ka qaato si ay Quraysh ugu celiyaan dadkan magangelyo doonka ah. markii uu dhammaystay khudbadaasi taariikhiga ahayd ayaa waxa kale oo uu soo qaatay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed sheeko kale oo xiiso leh oo dhex martay isaga iyo dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta. Abiy Ahmed ayaa sheegay in dhaxal sugaha Imaaraadka Carabtu uu u sheegay ra'iisul wasaaraha in dowladda Imaaraadka Carabtu ay wax walba la garab taagan tahay dalka Itoobiya, isla markaana ay doonayaan in ay dalkaasi ka dhisaan machad lagu barto culumta Islaamka. waxa kaliya ee aan idinka doonaynaa waa inaad naga caawisaan in aanu luqadda Carabiga u barano si degdeg ah, si aan diinta u fahanno si wanaagsan, idinkana aan idinku soo celino manhajka Islaamka ee saxda ah. hadalkaasi markii uu yidhi ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa madashii waxaa la isla ogsaday takbiir iyo tasbiix iyo weliba sacab. ra'iisul wasaaraha oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi haddii la isku daro muslimiinta ku nool dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar iyo Kuwait ma gaadhayaan tirada muslimiinta ee ku nool Itoobiya. dhammaan haddii la isku daro tirada dadka wadamadaasi kama badna 35 milyan, idinkuna waad ogtihiin taasi. waxaanu hadalkiisani ku soo gabagabeeyay in ay mar weydiiyeen maxaad kaga cararaysaa tiro badnida, waxa uu ugu jawaabay in Islaamku aaminsan yahay tiro badnida. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa dalka Itoobiya ka wada isbedelo dhan walba isagoo dadka qaar ay ku tilmaamaan inuu yahay dadka ugu habboon ee qaaradda Afrika wax ka bedeli kara. Abiy Ahmed ayaa dalka Itoobiya ka hirgeliyay isbedelo aan hore looga baran xukuumadihii Itoobiya, iyadoo weliba aad loogu ammaano soo afjaridii dagaalkii xuduudda ee Itoobiya kala dhexeeyay dalka Eritrea.